بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan idinku soo bandhigaynaa warbixin sanadeedka Somali Journalist Syndicate oo markaasi soo koobaysa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliya ee weerarada ka dhanka ah suxufiyiinta waxaan ciwaan uga dhignay xaaladda xurriyadda saxaafadda 2023 weerarada internetka xariga sharci darrada iyo handadaad u adeegista garsoorka warbixinta sanadeedka SJS sanadka 2023 muqdisho Soomaaliya dahfurnaan la'aanta ku gadaaman dilka agaasimihii Somali Cable Allah u naxariistay Cabdi Fataax Macalin Nuur Qays oo lagu dilay qarax ismidaamina oo ka dhacay magaalada Muqdisho 16 Oktoobar 2023 iyo rabitaan la'aanta hay'adaha ammaanka ee dawladda Soomaaliya ee ah inaysan rabin inay baaritaan ku sameeyaan weerarkaas waxay xasuusin weyn u tahay fashilka dawladda Soomaaliya ee dhowrid la'aanta balanqaadka ku aadan sugidda amniga iyo badqabka suxufiyiinta dhacdadan naxdinta leh ayaa hoosta ka xariiqaysa sida joogtada ah ee Soomaaliya u tahay meel dambiilayaasha ku kaca weerarada ka dhanka ah suxufiyiinta ay xor u yihiin oo aan la xisaabtamin sida ku xusan diiwaanka guddiga difaaca suxufiyiinta ee CPJ intii lagu guda jiray sanadka 2023 ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed SJS wuxuu sameeyay dadaallo badan oo lagu diiwaan gelinayay tacadiyada ka dhanka ah suxufiyiinta iyo xarumaha warbaahinta dalka oo dhan taasoo daaha ka qaadaysa tiro badan oo dhacdooyin handadaad ah weeraro iyo cadaadis lala beegsaday howlwadeennada warbaahinta mid ka mid ah dhacdooyinka ayaa ahaa weerar hubaysan oo lagu qaaday idaacadda Baraawe oo ah tan kaliya ee bulshada deegaanka laga tiro badan yahay ay leeyihiin taasoo keentay in la xiro idaacadan madax bannaan iyo suxufiyiinta ka shaqeynaysay ay cabsi darteed uga cararaan magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose intaa waxaa dheer SJS waxay diiwaan gelisay xariga aan sharciga ahayn ee 25 wariye kuwaasoo intooda badan ay la kulmeen cadaadis iyo cabsi gelin loo adeegsaday garsoorka si looga hor istaago suxufiyiinta gudashada waajibaadkooda shaqo ama u doodista xurriyadda warbaahinta waxaa xusid mudan 7 ka mid ah suxufiyiinta la beegsaday 2023 inay ka dhaceen gudaha Somaliland iyadoo mid ka mid ah suxufiyiinta gabar wariye ah oo lagu magacaabo Bushra Ali Maxamed Bushra Banday oo ay xireen booliska Somaliland muddo ka badan 2 bilood ilaa 18 kiis oo ah xarig sharci darrada ay suxufiyiinta waxaa geystay qaybaha kala duwan ee booliska Soomaaliyeed hay'adda sirdoonka ee NISA iyo ciidamada ammaanka ee maamul goboleedyada sida kuwa Galmudug iyo Jubbaland ugu yaraan mid ka mid ah shaqaalaha warbaahinta ayaa ku dhaawacmay weerar mindi loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa sii xumaanaya caqabadaha haysta suxufiyiinta Soomaaliya waxaa la faray 2 shabakadood oo telefishan maxalli ah oo ka howlgala magaalada Muqdisho iyo Hargeysa inay joojiyaan baahintooda ama meesha ka saaraan waxyaabaha loo arki karo inay naqdi yihiin halka suxufiyiin caan ah oo wax ku qora baraha bulshada ay sheegeen in si qasab ah looga saaray waxyaabo ay faafiyeen oo ay dhibsadeen saraakiil dawladeed mid ka mid ah dhacdooyinka ayaa ahayd warbixin soo bandhigtay dhacdo jirdil ah oo ciidamada booliska Soomaaliya ay magaalada Muqdisho ugu geysteen fal ka dhan ah qof naafa ah sidoo kale wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa ku faantay inay iskaashi la leedahay Facebook si ay faareeb ugu samayso wararka naqdiga ah ee lagu faafiyo baraha bulshada ee ku saabsan fashilka ciidamada dawladda ee dagaalka kula jirta Al-Shabaab halka Al-Shabaab laftarkeeda ay u hanjabeen suxufiyiinta la shaqeeya dawladda sanadka 2023 SJS waxay diiwaan gelisay kiisas kale oo ku lug leh hanjabaado ka dhan ah internetka iyo kuwa jireed oo ka dhan ah suxufiyiinta hay'adaha warbaahinta Soomaalida oo ay ku jirto ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed SJS ayaa la kulmay weerar xoogan oo dhanka internetka ah kaasoo muujinaya kor u kaca ku yimid isku dayga lagu burburinayo shaqada muhiimka ah ay hayaan hay'adaha warbaahinta iyadoo loo adeegsanayo
tabaha adeegsiga diidmada qaybsan DDoS weerarka internetka ayaa lagu qaaday mareegta SJS ee www.sjsyndicate.org kadib markii lagu xarqiyay qulqulka weerar danabaysan oo ka dhigtay mareegta SJS mid aan la heli karin isla markaana ugu yaraan 3 hay'adood oo kale warbaahineed oo kala ah Cab TV, Horn Observer iyo Horn Examiner ayaa sidoo kale ay soo wariyeen weeraro isku mid ah iyagoo hoos ka xariiqay dabeecadda bahsan ee qatarta ah ay wajahayaan aaladaha suxufiyiinta ee dhanka internetka walaaca gaarka ah ayaa ah isticmaalka sii kordhaya ee hanaanka Facebook community oo sabab u noqday inay si xad dhaaf ah oo qaldan loo adeegsado habka warbixin gudbinta baraha bulshada ee suxufiyiinta iyadoo ujeedku uu yahay in lagu faafreebo suxufiyiinta Soomaaliyeed ee dhaleeceeya dawladda taasoo keentay in waxyaabaha ay baahiyeen suxufiyiinta la xadido ama laga tirtiro internetka iyo xorriyadda hadalka suxufiyiinta iyo warbaahinta dhaliila dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo hay'adaha nabad sugidda iyo sirdoonka NISA ayaa kala kulmay barta Facebooka xayiraad baahsan bogoga oo la xiro la joojiyo ama laga saaro warbixinada ay ku jiraan dhaliisha iyadoo loo adeegsaday cudurdaarka ah ka hortagga ururada iyo shakhsiyaadka qatarta ah ama ku xadgudubka weerarka Facebooka intii lagu jiray sanadkii 2023 suxufiyiinta Soomaaliya iyo Somaliland waxay la kulmeen caqabado waaweyn oo ku saabsan tabinta eedeymaha musuqmaasuqa xadgudubyada xuquuqda insaanka oo ay geysanayaan ciidamada ammaanka ee dawladda iyo amni daro iyo weeraro ay geystaan al-shabaab inkastoo ay jiraan ballanqaadyo dastuuri ah oo lagu ilaalinayo xorriyadda saxaafadda isla xisaabtan la'aanta dambiyada ka dhanka suxufiyiinta ayaa weli ah walaac xoogan iyadoo oo aan wax horumar ah laga gaarin baaritaanka iyo la xisaabtanka dambiilayaasha iyadoo laga ambaqaadayo caqabadahan taagan xeeraryaha guud ee Soomaaliya waa inuu mudnaanta koowaad siiyaa badqabka iyo amniga suxufiyiinta isla markaana uu wax ka qabto la xisaabtan la'aanta lana baaro dambiyada ka dhanka ah suxufiyiinta Soomaaliyeed oo ay ku jiraan kiisas ay ku lug leeyihiin mas'uuliyiin sarsare oo xilal ka haya dawladda inta waxa dheer isticmaalka joogtada ah xeerka ciqaabta ee Soomaaliya iyo Somaliland labaduba waxay qatar ku yihiin xorriyadda hadalka taasoo muujinaysa baahida degdega ah ee loo qabo dib u habeen lagu sameeyo sharcigaas si looga jawaabo caqabadahaas SJS iyo howlwadeenayaasha caalamiga ah waxay qaadeen tallaabooyin wax ku ool ah sanadkii 2023 iyagoo 2 dacwadood oo waaweyn u gudbiyay kooxda shaqada ee qaramada midoobay ee xabsiyada sharci darrada ah iyo golaha xuquuqda aadanaha cabashooyinkan waxay si gooni ah u cadeynayaan xarigii sharci darrada ahaa ee beegsiga iyo iqaabta ka baxsan bani'aadinimada ee ka dhanka ah xogayaha warfaafinta iyo xuquuqda aadanaha SJS mudane Maxamed Ibrahim Bulbul iyo tacadigii beegsiga lagula kacay xogayaha guud ee SJS mudane Cabdalle Axmed Muumin SJS waxay weli ka go'an tahay inay u raadiso cadaalad iyo isla xisaabtan xadgudubyadan xorriyadda saxaafadda ka dhanka ah annagoo ka faa'iideysanayna xiriirkeena caalamiga ah SJS waxay sii waday dadaalkeeda u doodista iyadoo la kaashanaysa noocyo kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah si loo difaaco xorriyadda warbaahinta ilaalinta xuquuqda aadanaha sugidda badqabka iyo helitaanka xogta ee internetka iyo tallaabooyinka badbaadada ee difaaciyaasha xuquuqda aadanaha oo ay ku jiraan suxufiyiinta oo aan kaliya ku koobneen Afrika laakiin sidoo kale goobaha kale ee caalamka bishii Luulyo sanadkii 2023 SJS waxay gaartay guul muhiim ah markay ku biirtay Machadka Saxaafadda Caalamiga IPI oo ah shabakad caalami ah oo ka kooban tafatiriyaasha madax bannaan warbaahinta iyo suxufiyiinta caanka ah xubinnimadan waxay xoojinaysaa ka go'naanshaha SJS ee ku aadan difaaca xorriyadda saxaafadda badqabka suxufiyiinta iyo ilaalinta xorriyadda hadalka gudaha Soomaaliya iyo masraxyada caalamiga sanadkan oo dhan SJS waxay door muhiim ah ka ciyaartay taageerida saxafiyiinta
ay heestaan caqabadaha sharciga iyadoo bixisa habab dhinacyo badan oo leh oo wax loogu qabanayo caqabadaha dacwadaha sharciga iyo qataraha ku ah xuriyatul qowlka tani waxaa ka mid ah in la siiyo taageero difaac sharci la talin talo 47 suxufi ah oo ay ku jiraan saxafiyiinta haweenka SJS waxay sidoo kale barnaamijyo tababar u qabatay 84 suxufi iyadoo diiradda la saarayo awoodsiinta suxufiyiinta haweenka oo qiyaastii 40 boqolkiiba ka mid ah ka faa'iideystayaasha barnaamijyada haweenka ay ahaayeen iyo wax ka qabashada xuquuqda aadanaha iyo arrimaha xuquuqda haweenka ee guud ahaan Soomaaliya SJS waxay u mahad celinaysaa taageerayaasheeda iyo howlwadeennada caalamiga ah sida National Endowment for Democracy NED iyo sanduuqa Canada CVLI iyo Midco International SJS waxay qorsheynaysaa inay sii wado qorshayaasheeda tababar ee la midka ah sanadka 2024 si kor loogu qaado awoodda suxufiyiinta maxalliga ah ee markaasi ka soo warbixinaya arrimaha muhiimka u ah bulshada Soomaaliyeed guud ahaan wabillahi tawfiiq Allah mahad leh